haddii aad habeen ku dhex jirto badda oo aad maqasho garaac ka imaanaya qaybta hoose ee doonta maxaad samayn lahayd? Kalluumaysata ayaa sheegtay in habeen madow ah ay maqleen dhawaqaas oo ah 3 jeer markasta oo ay istaagaan wuu istaagayaa. markasta ay istaagaan dhawaaqa wuu istaagayaa. midkooda ayaa khalad sameeyay. khaladkan wuxuu ahaa inuu doonta qaybta hoose fiiriyo biyaha madowga dhexdiisa waxaa kasoo dhex muuqday 2 indhood oo waaweyn oo iftiimaya. kadib doontii si xoog leh ayaa hoos loogu sii jiitay hal dhinac. raadiyaha ayaa si kadis ah u shidmay. cod hoose ayaa lagu yiri hoos kaaliya. markii doonta la jiitay xeebta qof walba wuxuu mooday inay ahayd shil iska caadi ah, laakiin qolka hoose ee doonta ee leedahay waxaa ka buuxay biyo qabow ah inkastoo aan dalool jirin ama meel duleesha aysan jirin. derbiga doonta gudaheeda waxaa ku yaala faro dheer oo qoyaan ah sida wax weyn oo gudaha soo galay oo kale. dib aynu u baxno. kaamira yar oo saaran doonta oo la hubiyey waxa ay duubtay hal muuqaal oo keliya habeenkii. muuqaalkaas waxaa ka muuqday ninkii hoos eegayay wuxuu istaagay isagoo eegaya badda. shaashada kaamirada inta aysan damin ka hor waxaa ka muuqday gacan aad u weyn oo ka samaysan wax madow ah oo si tartiib u qabsanaya lugta ninka. muuqaalkaas halkaas ayuu ku joogsaday. booliskii badda ayaa baaray codkii ugu dambeeyey ee laga helo raadiyaha. waxa ay maqleen neeftuur zaa'id oo degdeg ah. wuxuu si tartiib ah u yiri ma ahan biyo ee waa wax kale. kadib wuxuu yiri eri aan cidna fahmin. wayna eegayaan dhammaantiin wayna eegayaan. isla waqtigii qalabka cabirka qotada dheeraay ay muujiyeen tiro aan macquul ahayn qotar dheeraanta dhammaantooda. markii la isku dayay in la helo jirkiisa wax raad ah lama helin, laakiin soonarku wuxuu qabtay muuqaalka wuxuu ahaa wax aad u weyn oo ku wareeganaya doonta hoosteeda. markasta oo la fiimiyo wuu baaba'ay waana la waynayay. ilaa maanta meelaha qaar ee badda kalluumaystayaasha ma istaagaan markay maqlaan 3 dhawaaq ama garaac.